waxaa jira 6 nooc oo nasiino ah. nasiib darase badankeen waxaan aaminsanahay in nasiinada kaliya aan ka helno hurdada iyo jiifka. haddaba aan kula wadaago. midda koowaad waa physical rest, waa inaad jir ahaan u nasato. tani waxaa qayb ka ah hurdada iyo jiifka, masaajka iyo wixii la mid ah. midda labaad waa mental rest, tani waxay tahay inay maskaxdaada nasato adigoo warqad ku qoraya dhammaan fikradaha negative-ka ah ee ku dhibaya. midda saddexaad waa sensory rest, oo ah inay dareemahaaga nastaan. tani waxay tahay inaad gebi ahaanba iska damiso ama aad iska xirto shaashadaha moobaylka, midda kombiyuutarka, sidoo kalena aad iska damiso nalalka guriga ilaa waxoogaa muddo ah. midda afaraad waa emotional rest, tani waxay macnaheedu tahay inaad naftaada daacad u noqoto oo aadan ka baqin inaad si xor ah u muujiso waxa aad dareemayso, iskana ilaaliso inaad dadka raaligeliso. midda shanaad waa social rest, tani waxay macnaheedu tahay inaad kala garato xiriirka aad dadka la leedahay, midka ku horumarinaya iyo kan hoos kuu dhigaya. kadib naftaada kaliya wehel kaga dhig dadka positive-ka ah ee aad wax ka faa'iidayso. midda lixaad waa spiritual rest, oo macnaheedu tahay inaad nasiino siiso ruuxdaada adigoo ku nasinaya salaada, dikriga Ilaahay, quraan akhriska iyo wixii la mid ah. haddii aad hesho hurdo kugu filan laakiin aad weli dareemayso daal, haddaba waxaa kaa maqan qaybaha kale ee nasiinada ee ku dadaal.